Bismillah, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waxaan qaadan doonaa casharkeenii toddobaad ee koorsadii aan ku sharxaynay sida daatada loo maareeyo loona analyze gareeyo anagoo isticmaalayna SSL software-ka loo yaqaano Stata. Casharkeena toddobaad waxaan ku sharxi doonaa sida xogta loo geliyo Statada anagoo isticmaalayna gacanteena ama manually. Sidoo kale waxaan ku sharxi doonaa topic muhiim ah oo loo yaqaano Stata log file loo yaqaano ayaan ku sharxi doonaa. Inta aanan steps-ka loo maro iyo qaabka u shaqeysa aanan gelin Stata log file aan sharaxaad yar ka bixiyo. Stata log file waa file ka oo noo diiwaan gelinaya ama noo duubaya dhammaan commands-ka aan run gareyno iyo natiijooyinka nooga soo baxa marka laga reebo natiijooyinka nooga soo baxaya graphics-ka ama jaantusyada. Sidoo kale waa hab xigmadaysan ka oo noo haynaya koobi ka mid ah shaqadii aan qabanay ka oo aan markasta oo aan u baahano aan dib ugu laaban karno ama aan u reverse gareyn karno. Si aan isula fahamno qaabka u shaqeyso steps-ka loo maro, number 1 waxaan tegi doonaa wax loo yaqaano file, kadibna waxaan sii tegi doonaa log, kadibna waxaan dhigi doonaa begin ayaan ku dhufan doonaa. Kadibna file-keena ayaan magac u bixi doonaa. Let us call log file 1 aan ula baxno. Kadib dabcan laba format ayaa inta badan loo isticmaalaa, formatkan iyo format kale oo loo yaqaano log. So loggaas ayaan mostly aniga isticmaalaa, laakiin kan haddaa loggan ama formatkan koowaad oo default-iga uu saaran yahay haddaa isticmaashidna wax dhiba oo ay leedahay ma lahan. So waa inaa meel adiga ogtaa ku kaydsataa. Aniga dabcan PC-gayga volume D folder WD ayaan ku kaydsanayaa. So sidaas ayuu igu kaydsan yahay ama log file-ku igu bilaaban yahay. Dabcan waana kana meesha u yaalo ama location-ku u yaalo ama directory-gu u yaalo waa kana. Hadda marka wixii ka dambeeya wuxuu ii diiwaan gelin doonaa ama ii duubi doonaa dhammaan wixii aan ku run gareeyo qaybtan oo command window-ga ah iyo sidoo kale result-iga iga soo baxda meeshan oo result window-ga wixii iga soo baxo dhan ayuu i run gareyn doonaa. So maadaama qaybta hore aan saas ku sharaxay aan isla aragno qaybta oo data entry-ga. Si aan xog u gelino Statada waxaan haysanaa afartan su'aal ayaa haysanaa oo dabcan waa sample of questions. Adiga more than 4 questions haysan kartaa iyo xog intaa ka badan haysan kartaa, laakiin dabcan haddaa sample-kan iyo afartan su'aal si loo geliyo haddaa fahamtid iyo xogtooda waxaan rajeynayaa in haddii kumanaan ama malaayiin xoga ay haystid aad geli doonto just sample-kan inuu ku caawiyo ayaan rajeynaa. So afartan su'aalood su'aasha koowaad waa ID numberka qofka, su'aasha labaad waa genderka qofka oo dabcan code gareynay 0 female 1 male. Su'aasha saddexaad oo age qofka aan weydiinay iyo su'aasha afraad oo la weydiiyay statement-igan ama opinion-ka aragtida uu ka qabo statement-igan in xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysan doonaan doorashada xigta. Jawaabta nooca dadka u bixinayeen waxay ahayd qaabkan oo Likert scale-ka ah 0 strongly agree, 1 agree, 2 neutral, 3 disagree iyo 4 oo strongly disagree ah. Waxaa haysanaa afartan qofood afartan respondent jawaabahooda ayaa haysanaa. So waxaan rabnaa inaan gelino xogtan yaroo kooban ayaan rabnaa inaan gacanteena ku gelino Statada inaan gacanteena ku gelino ayaan rabnaa. So let us go to Stata. Statada marka Stata saa usoo furano waxaa jiro command kasta oo ama lagu run gareynayo ama shaqo kasta oo Stata lagu qabanayo weliba command ahaan loo qabanayo waxaa jiro command gaar ah ayaa jiro. Marka data gacanteena aan ku gelinayno ama by command aan ku gelinayno Statada waxaa la isticmaalaa command loo yaqaano input markaa isticmaashid kadibna waxaan geli doonaa su'aalihii dadka aan weydiinayno waxay ahaayeen ID-ga qofka, genderkiisa, age-ka qofka iyo opinion sida uu qabay ayaa weydiinaynay. So intaa markaa gelino okay ayaa leenahay danna waxaan tegaynaa jawaabihii ama xogtii ay bixiyeen. So qofka ugu horeysa waa female da'deeda 22 ah, opinion-ka ay qabtana 3 waa okay. So dabcan number 1 ID-ga waa 1 0 22 3
qofka labaad maxaa waaye IDgiisa dabcan waa 21 oo male ah 35 age ah 0 ayuu qabaa so 235 my 0 dabcan waa 1 aan dhaho 2gaas waxaa waaye ID-ga 1ka wuxuu caddeynayaa inuu yahay male da'diisa 35 waaye dabcan spacea bixee markastoo xog meesha gelisid opinionkiisana 0 ahaa qofka labaad qofka saddexaad aan dhaho qofka saddexaad waa male 20 years age ah opinionkiisana waa 2 so 3 1 20 2 ayuu ahaa opinionkiisana qofka afraad dabcan IDgiisa 4 uu noqonaa I think inuu 0 ahaa uu female yahay agekeedana 18 ahaa opinionka ay qabtana ay gelisay 4 so afartii qofood oo xogta aan ka haynay sidaas ayaan xogtoodii ku wada gelinay haddii aan haysan lahayn marka xog intaa ka badan dabcan waa sii wadi lahayn laakiin maadaama xogtii aan haysanay ay almost dhan tahay ama almost finished ay tahay then waxaan leenahay istaatada waa inaan u sheegnaa in xogteennii aan wada gelinay oo saasay ku dhamaato so waxaan leenahay end ayaan leenahay so saas ayaan xogteenni ku gelinay xoogaa marka waxaa laga yaabaa in aad ku wareertid xogtan aan meeshaan gelinay iyo ID-ga genderka ageka inaysan isku aadanin oo xoogaa aysan aan aad loo fahmi karin keebaa kan kale iskale ama numberkan ya iskale in xoogaa lagu wareero ayaa laga yaabaa marka wareerkaas waxaa kaa saaraya qaybta spreadsheet-ka so simply browser ama BR aa dhihi kartaa haddaa fiirisid marka daatadeena waa kana ID-ga dabcan waa isku aadan yihiin ID-ga iyo xogtiisa genderka iyo xogtiisa isku aadan yihiin ageka iyo xogtiisa isku aadan yihiin opinionka iyo xogtiisana sidoo kale way isku aadan yihiin so meeshaan ayaa si clear ah ugu arki kartaa haddaad la socotaan markaan intaana commentskan shaqadan aanaan qaban ka hor waxaan soo furannay wax loo yaqaano log filekaas waxaa dhahnaa wuxuu noo diiwaan gelinayaa ama noo record garaynayaa dhammaan shaqooyinka commentska aan meeshan gelino iyo resultska inta nooga soo baxa ayuu noo diiwaan gelinayaa so maadaama aan log filekaas uu noo furan yahay waxaan rabnaa inaan log filekeena shaqadii maadaama aan dhammaynay inaan log fileka aan xirano ayaan rabnaa okay so file aa ku laabanaysaa kadib waxaad tegaysaa wax loo yaqaano log file kadibna waxaa ku dhufanaysaa begin hadda waxaa ujeedeen inay kaa calaamadaysan tahay oo aadan ku dhufi karin sababtoo ah almost waxaa kuu furan log file ayaa kuu furan so log filekaas waa inaa markood soo xirtid so log filekeena ayaan close dhahayna so from now wixii ama hadda iyo wixii ka dambeeya haddaan meeshan command gelin ama shaqo qabano waxna loo diiwaan gelinaa male inti shaqadii hore oo dhan laakiin waa noo diiwaan gashan tahay si aad ku ogaatid marka shaqadii hore inay ku diiwaan gashan tahay iyo meesha waa kuu save garaysneed dabcan si aad u ogaatid isla loggii ayaa ku laabanaysaa kadibna waxaad tegaysaa sorry file aa ku laabanaysaa kadib log aad tegaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa view maadaama hadda aad rabtid inaad aragtid log file aad hore u diiwaan gashatay maadaama rabtid inaad aragtid kadibna dabcan qof kasta meesha u yaalla meeshaas browskaa ku dhufanaysaa meeshii uu ku yaallay ayaadna tegi doontaa insha allah so new file ana meesha wuxuu yaallay volume D uu yaallay WD then okay so meeshan formatkan maadaama aan ka dhigtay log aa ka dhigay ayuu saas igu soo saaray so waa kana log filekeyga waa kana kadibna okay ayaa leeyahay kadibna waxaa ujeediin xogtii ama shaqadii aa qabtay oo dhan waa kana weliba log fileka xilliga aa furay saacaddii aan furay iyo saacaddii aan xiray iyo taariikhdii aan furay taariikhda xiray intaba waa arkay si clear ayaa u arki kartiin so I hope inaad fahamteen adna practice garay doontiin ayaa rajeynaa insha allah